اوكي. saad wax u rabtid fiiriday kitaabkaas muujeedaa samada lagama soo dejin asoo kaligiis iska socday nabi maxamed baa lagu soo dejiyey isagaa ku hadloo dadka baray isagaana dadka waxay ku islaamayaan iyo qaabka u islaamayaan iyo tafaasiisha sii galay laakiin fahamka guud ayadda hadda wadaadku uu kuu soo qaaday horta way ku caddeed haddaa rabtid shahid allahu annahu laa ilaaha illaa huwa yacni هذا في آيات في سورة البقرة لفتر كذا بقول تضاهت إن شاء الله وحول ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر متكون أحسن إبارة يا محاول قفك مؤمن كان رفيع حالي من آمن قفك الرمية بالله الله واليوم الآخر ما لنت الدنب يوال ملائكة ملائكته يوال كتاب كتبته يوال نبيين النبي هذا سمعت يعني وحي كنت سنة ساعة إيمان قفك لقاه لواكه waliba ayad waxay sii sheegaysaa iimaan waliba qof iimaan laga helay oo baari waliba sii oo qof wanaagsan sii ah marka ayad adigu xasan yolo inta hadda adiga noo noqotay baari waxaad noo sheegtaa suuratul imraan baan dul taaganay aayadda hortaan soo wada furnay aayadda noo sheeg saan qof walba gurigiisa jooga aayadda u dul istaago 77 waxaad soo saartaa suuratul baqara 177 okay aayaddaas horta la soo wada furto suuratul baqara aayadda 177 177 haye ma inay soo baxdeen wayha aayaddan markaas ayaad ku caddaynaysaa muslimnimadaada laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah horta quraanka oo dhan baaba ku tusinaya moogtaa quraanka meel kasta ka buuxdaaba meel kasta ma baahan yahay waxaad islaamnimada waxaad ku caddaynaysaa laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah suuratul baqara aayadda 177 aan dul taaganahay bal loo akhri wixii aad u baahneed kala soo bax markaa Soomaaliland lagu sheeg markaad kala soo baxday wixii aad u baahneed laysa albirra يعني سمفلكم معها أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب إنها وجيد إن المشرق والمغرب وجيدسان ولكن البر أي البار متك بارجة وحاوية من آمن قفك الرمية بالله الله واليوم الآخر ما لنت الدنب والملائكة والكتاب والنبيين سفوين كلا قفك ما عليك تبار نمد سكوت سنة وشيء سان آيات دامرك قفك مؤمن كوحي تلمام من آمن بالله قفك إله الرمية قيامة الرمية ملائكة الرمية كتابة الرمية نبية الرمية سمع أرك مركو حكو سنة آيات أركان بدن إيمان كأركان تيسا كمدة مكان بساسا دينتا لغو سوق أساسا تكو عدنا الساعة المسلم تاي حضرنا ساعة يعني قفك توصن ما هان قفك وجهك يسوي لي حيو كالبيت كيو برقة بل سوى حويه قفك توصن قفك آمنة إلهي maalinta qiyaamaha iyo malaa'igta iyo kitaabiga iyo nabiyada hadda kulli marka la reebi karo kulli nabiyada oo dhanba iyo oona dhaqaalihiisa ama maalkiisa jecel inuu wax ka siiyo qaraabadiisa agoonta dadka masaakiinta dadka safraya hadda iska dhiga tabliiqiinta laakiin dadka magaalada ka sii safraya iyo qaabi ama kuwa maxalla adoonta salaadoodana ooga sakaadna baxsada oona balantooda fuliya mar walba ee balan qaadaanba oo haddana sabar mirana ama dulqaad mirana xilliga adag duruufta la kulmaan iyo xilliga ee baqdin ku jiraan ama xilli adag kuwaas way kuwa haddana حقا كنت هاجنا أما رونت الشاقة وكوي حدنا متقينتها صحيح وحنا كنت رصدي مسوي وحنا كنت رصدي ما يا هذا عايد أنت الشاقة ما وحنا كنت رصدي مسوي وحنا كرامي مسسان كل سوق بيه ما كو قادنا مسوي وحبات كم كان استعمها قف كمسلم كقول لي هاي إن بدنا وكمل بشكتي يقيم ما عرفتي أستامها اللي شيء يا ولا نجسون أستامها اللي شيء يا البرة وحوي قفك التوصل بلغ هذا يا قفك التوصل هاي ونكسر قفك ونكسر
qofka isagoo qofka hadduu toosnayn muslim ahaan karaa qof xogaa qolo yar ku jira muslim ahaan karaa ها وأهان كرا okay marka shahaadadii maaha marka meeshan maaha wixii lagu cadeynaya islaamnimadaada معناها ما واحد ربطة يعني واحد قفك إسلام مدري سيسن أنصح عين كلية بارتميا maya aayadan waxay tilmaamaysaa keliya qofka toosan laakiinse ma cadeynaysa aayadan qofka inuu muslim yahayba يجيسو horta baba la soo koobi karaa ayadaha ku tusinaya aad bay u fara badan yihiin aayadan horta aayadan aan meel isla dhigno horta aayadan meel aan isla dhigno